mucjiso ila yaab ka dhacda dalkaasi Hindiya kadib markii nin u dhashay dalkaasi oo doonayay midka gabadhiisa inuu qabri u qodo uu la kulmay wax la yaab leh. intaana u gudagelin muuqaalka fadlan haddaa ku cusub tahay channelka subscribe noo saar muuqaalkana like saar si aan u helno asxaab wanaagsan sidaadoo kale. mahadsanid. gabar yar oo maalmo u dhalan ayaa iyadoo nool laga soo saaray qabri ay ku aasneyd waqooyiga dalka Hindiya sida ay booliiska dalkaasi shaaciyeen. gabadha yar oo lagu aasay qabri hoos u qodan qiyaastii 90 sentimitir ayaa durbadiiba isbitaalka loola cararay halkaas oo iminka lagu daaweynayo. dhakhaatiirtuna waxay sheegeen in xaaladda gabadha yar ay soo hagaagayso marba marka dambeysa. ciidamada booliiska dalka Hindiya ayaa bilaabay howlgal ay ku baarayaan dhacdadan. waxaan isku dayaynaa inaan helno waalidiinta dhalay gabadha qabri laga soo saaray waxaana ka shakisanahay inay ka warqabaan sida ay wax u dhaceen raallina ay ka ahaayeen ayuu yiri afayeen u hadlay ciidamada booliiska dalka Hindiya oo la hadlayay warbaahinta gobolka Uttar Pradesh. sida uu sheegay afayeenka u hadlay booliiska dalkaasi Hindiya ninka tuulada degan ayaa qabriga u qodayay midka gabadhiisa markii uu la kulmayay dhacdadan naxdinta badan dhalisay. iyagoo qabrigii qodis ku wada oo hoos u gaaray ilaa 90 sentimitir ayuu badiilkoodii ku dhacay ashuun wayna soo bixiyeen. haddii ay eegeen ashuunkii waxaa ku jirtay gabar yar ayuu yiri afayeenka u hadlay booliiska dalkaasi Hindiya oo sharaxaya dhacdada. booliiska ayaa markiiba nugta yar ula cararay isbitaalka waana la daaweynayaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay afayeenka u hadlay booliiska dalkaasi Hindiya. Hindiya ayaa ka mid ah wadamada caalamka ee ay ka jirto isku dheelitirnaan la'aanta ugu badan ee ragga iyo dumarka. haweenka ayaa inta badan lagu cunsureeyaa dalkaas gaar ahaan kuwa ka dhashay bulshooyinka saboolka ah. dadka u ololeeyay in arrintaas la soo afjaro ayaa sheegay in dhaqanka ay bulshooyinka qaarkood haystaan ee wiilasha lagu doorbido uu sabab u noqday in la dilo malaayiin gabdho da'yar ah. dalkaasi Hindiya waxaa caadi ka ah inta badan gabdhaha aan loo baahnayn uurkooda in la iska soo xaaqo iyadoo la kaashanayo dhakhaatiir sharci darro ah. haddana weli waxaa jira gabdho badan oo markay dhashaan la dilo ama nolosha lagu aaso.